أصلي وحي وش أجان وضد في برشة مرة وبعشر ما دوني يعني لما تسوق دوحة أيش أجان أيان هاي هديل وكان عوايان حك على أو كدوان أو تينا بسوق سوق بسي أنا هين أنا وما هين قصي هاينا سوق بيو إكرامنا قبل دواية تبكي دواية لكن حكتي أي سوق بيان سراكيش أمنه وحكدوان ما يهلي كريم قصي وحكدوان نوعايا أنا كانوا حكتاس محايا دوزير حكتاس وحيا هذا إن لا أفضل قبل oo la isu dhiibay oo niman qowleysata isu dhiibeen aakhirkana ay ku jilb agteeda lagu dilay waa gartanaanka qowleysatada sidee uga qabteen xaruntii habar qadiijo oo nabadgelyada Soomaaliya ma ogaat ma weydiis maya xarunta inay ka dhax qabteen ba aniga xogtaas ma hayo laakiin xarunta meel ka baxsan oo u dhow laakiin ka baxsan xarunta u xiran xogta la soo gaarsiiyay waa sidaas laakiin xog ka duwan oo ka bedelan oo taas ahayn qofkii haya anoo keen goorma lagu soo gaarsiiyay ma hadda markay doodu bilaabatay mise muddadii la laaba maya maalintii la waayay ilaa maalintaas waa daba soconay meel ku soo sheega waxay dhaheen waqti waa soo baaraynaa waqtiga qaadatay ayadana sida ay xogta ugu soo gaarsiiyeen ayagu waxa waaye waa la isu dhiibay xataa hal meel ma ahayn meel baa la geeyay sida ay sheegayaan meel kale looga sii dhiibay meel kale wax waqtiga qaadatay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri xogtaasaan hay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri waxa ku lug lahaa dad qowleysataan ku qowleysato marka qowleysatada rabaa inaan xogaan noo jilciso dadka si u fahmaan ma ciidan ba madada la aqoon ba maxay adoo ma ciidan ba qowleysada hatarta inaan ka sheeg ciidan qowleysata ma hadal qof in ku hadla laakiin qowleysata waa shabaabka iyo dadka iyo muxuu ahaa maafiya iyo waxaasan ka hadlaynaa moogiyo ciidan qarana qowleysadana helada ikraan waxay sheegeen inuu taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya u yeeray baabuur ee hay'addu leedahay lagu soo qaaday xarunta habar qadiijo meel u dhow Hotel City Palace marka waana aag aan la gali karin anigu malihi fiiri adeer anigu waa been malihi anigu waxaan ku yiri adiga saraakiisha anigu aan madax u ahaa xogtay ii soo gudbiyeen sidaas ay ahayd xog ka duwan qofkii haaya oo noo sheegaya oo soo gudbinaya oo maxkamadaha iyo hay'adaha u gudbinaya xaq uu leeyahay laakiin anigu xogtii saraakiisha anigu madax ugu ahaa ay sheegeen xogtaas ay ahayd marka hadda marka wax isbedeleen aragtidaada iyo aqoontaada marka fiiriso si wax ku socdaan iyo xogti lagu soo gudbiyay mis waafaqayaan horta sidee raba go'aanadaas hay'adaha waxbaaraha iskale kadib maxkamadda iskale annaga waxa waaye waxbaan dhageysanaa waxa ay noo soo gudbin saraakiishu go'aan hadii la gaaray iyo waa been iyo waa run hay'adaha waxbaara iyo maxkamadda iskale waa maasanta maalmahan Facebook-gaaga iyo Twitter-ka aad baa uga hadlaysa qoraaladaada waa badan daqiiqada u dhaxeeya maxaad kala jeedaa qoraaladan xad dhaafka ah oo aan markii hore sameyn jiray adeer horta anigu shaqaan inaan shaqeeyaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed u shaqeeyo markaan uga shaqeynayo dawladda dhexdeeda uga shaqeynayo waqti uma hayno Facebook iyo laakiin hadda markii dawladdii ay noqotay nin isboqoray markuu asagu go'aan iska qaatay meel uu ka keenay aan ogeyn bulshada waa u shaqeynaa suugaantaana waa dhex shaqeynaa waxa waa muhiim anigu meel qof iska fadhinaya oo maahi waxaan ahay qof dynamic ah oo shaqeynaya haddaan dawladda ku jiro dawladdan ka dhex shaqeynaa bulshada u shaqeynaa haddaan ku dhex jirin bulshada u shaqeynaa dad badan suugaysana ma jirtana meel iska fariisto dad badan wasiir waxay u arkaan xil waa la isku dhiibi jiray waana la iska qaadi jiray sidaana may dhici jirin waxay ku arkaan inaad ku qafiiftay ku fududaatay hoogaa aadan maxaa ku raasi degan wax u qaabileen marka kula adeer dad qafiifayno meel ka wax ka dibadana soo marna anaga hadaan qafiifayno shabaab laba jeer aniga hotel lagu qabsaday nagu dhibay dagaaladii sokor dhamaan soo joogna badankooda adeer adoo qafiif bandhig laakiin waxaan ku sheegaa dembiga roob la iga galay ee dhabarka toogashada ah oo inta salaada gal lagu yiraahdo marka Allahu akbar tiraa gadaal laga fiiray kaas waxay xanuujinayaan bulshada Soomaaliyeed waa la qaybsanaa dhaqan xumadiisa mana joojinayo waana sheegaa waxa uu yahay aqoonna waa u leeyahay laakiin dadka hadda banaanka joogo qaarkood dan leeyihiin oo buuqooyinayaan oo dagaal gelinayaan qaarkoodna ay dana kale oo aanu hadda aan qabyaalad iyo wax lamid ay u daafacayaan waxba ka mooga anu laakiin waa la shaqeeyay rooble waana aqaana rooble waa is-aaminay waana istaarsanay waana khiyaanayay dhabarka uga toogtay saas hadday tahay bulshada waa u sheegaa waxa jira xaqeena u leeyahay